Norway oo ah mid ka mid ah wadamada Scandinavian-ka ee qaaradda Yurub ayaa ka mid ah wadamada ugu qanisan caalamka. Norway ayaa waxa ay soo saartaa shidaal aad u fara badan taasoo ka dhigtay waddanka shanaad ee shidaalka ugu badan dhoofiya iyo waddanka saddexaad ee gaaska ugu badan dhoofiya caalamka oo dhan. Taas ayaa ka dhigtay mid ka mid ah wadamada ugu qanisan caalamka. Waddankan ayaa sameeyay istiraatiijiyad aad u fiican oo ah inaysan isticmaalin lacagta shidaalka ka soo gasha ee ay ku shubaan sanduuq maalgashi. tan iyo 1998 lacagta shidaalka ka soo gasha ayay halkaasi ku shubayeen iyadoo ay lacagtaasi gaartay sanadkan 1 trilyan oo dollar. Haddii lacagtaas maanta loo qaybsho dadka waddankaas, qof walba oo Norwegian ah wax ku soo hagaagaysa 200 kun oo dollar. Lacagtaas ayay dowladdu ku maalgashataa sharikaad caalami ah si ay lacag ka sii badan ugu dhasho. Aan u soo dhaadhacno mawduuceena. Haddii aad tahay qof Norwegian ah oo shaqeeya, qof walba oo waddankaasi u dhashay waxa uu awood u leeyahay inuu ogaado lacagta aad qaadatid guud ahaan inta ay tahay. Haddii qofku uu shaqeeyo oo ay wax soo galaan, waxa uu dowladda siiyaa canshuur. Haddaba si canshuurta lagaga qaado waa in la yaqaanaa lacagta ku soo gashay si ay dowladdu awood ugu yeelato inay ka hubiso. Haddaba macluumaadka aad dowladda u gudbisay ayaa waxaa qof kasta awood u leeyahay inuu arko. Arrintan ayaan ahayn wax hadda bilowday. Tan iyo 1800 dadku waxa ay awood u lahaayeen inay inta tagaan hay'adda canshuuraha u qaabilsan waddanka Norway oo la dhaho Skatteetaten haddaanan dhawaaqa magaceeda kharibayn, kadibna halkaas ka fiiriyo ciduu rabo. Laakiin maanta caalamku teknolojiyadda meel walba ayay gaartay. Hay'adda canshuurta u qaabilsan waddankaas markii la gaaro bisha Oktoobar sanad walba waxa ay soo gelisaa macluumaadkaas oo dhan barteeda internet, taasoo ka dhigaysa qof kasta oo waddankaas u dhashay inuu awood u yeesho inuu baaro qofkii uu rabo lacagta uu soo gashay inta ay tahay. Laakiin 2014 ayaa dowladdu waxa ay samaysay arrin yaraysay dadkii aadka u baari jiray dadka kale lacagta soo gasha. Waxa ay ka baqayday in dhalinyaradu dugsiyada intay soo arkaan lacagta aabayaashood ay qaataan ay isugu faanaan amaba ay isku caayaan. Markaas waxay soo dejisay in haddii qof uu baaro lacagta ku soo gashay in email lagugu soo diro oo lagu sheego cidda faylkaaga baartay. Marka haddaa istiraadid qof aad taqaan baar lacagta soo gasha, isna waa ku ogaanayaa inaad baartay faylkiis. Inta badan dadku waxa ay baaraan siyaasiyiinta iyo dadka caanka ah. Laakiin wixii ka horreeyay 2014 qofku isagoon cidina ogeyn ayuu wuxuu awood u lahaa inuu baaro qof walba oo magaciisa u yaqaan lacagta soo gashay inta ay tahay. Inta badan siyaasiyiinta ayaa soo bandhiga lacagaha ay qaataan iyo canshuuraha ay bixiyaan si ay damaanad dadka u siiyaan inay canshuurtooda si sax ah u bixiyaan, lacagtana waddo sharci ah ay ku soo gashay. Sida ka dhacda Mareykanka, inkastoo madaxweynaha haatan xilka haya uusan soo bandhigin arrinka. Laakiin Norway ayaa ka mid noqotay wadamo aad u yar oo xataa dadka caadiga ah aad ogaan kartid waxa lacaga soo gashay iyo inta canshuur uu bixiyo qof kasta oo waddankaasi ku nool.